dadkii Hargeysa aerialkeeda ka qaxay oo sida ayaxa u soconaya ayaa socdo halkaas Itoobiya ku socda diyaarada garaacaya baabel hubna ma sitaan wada shacab waxa garaacaya diyaarada ha wadad ilmahoodii toorta ku sita oo qax ah wax allaaliyo waxay biyeenima ba jirta waxyaabihii aad u soo joogtay mahadooyinka lahaa wali aan xusuustaada ka go'in qaar ka in lay toogto ayaan ku sigtay maxaad u waraabinaysaa dadkan hal la dumiyo gurigan waa murtadi hal la dumiyo waa guri kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Fiyaada iyo Fagaaraha oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan boggeygan Cabdifataax Yuusuf Beered barnaamijkeena maanta waxa marti igu ah Cabdullaahi Axmed Cilmi oo ku magac dheer Dalab Cabdullaahi waa waayo joog in muddo u soo joogay marxaladii kala duwanaa ee dalka uu soo maray Cabdullaahi Dalab oo ku soo dhaweynaya waa dhawahay marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo Dhuusamareeb inaan kaaga bilaabo magaaladan aan joogno magaalada aan joogno xilligii horeeya timid goorma ahayd waxaan imid 63kii taariikhdaas aniga isu geystay dadkii uma ka bartay maba aanan aqoon anigu nin miyay ka yimid baan ahaa kuray geel jira waxaan baa igu dhaliyay masayri dhibaato igu haysatay oo gooni ah ma jirin marka magaaladii baan iska soo galay maqaayad baan ka shaqo bilaabay waxba ma diidi kartid wixii ku shaqeey lagu yiraahdo ku shaqeynaysaa xaram military waan ku noolaa mar ciyaalada xeryaha ku nool ciidamada ayaan marka mid ahaa haddana waan ka sii tagay mar xamar isaga dhaadhac mar xagga iska tag mar waxa weeye iskooriskaas la furo waa dhagaxasan soo garaacay heer baan soo joogay dhaqamadan hadda aad arkaysaan oo beddelmaya oo way lagu soo jiray marba waxa jiray mashruuc la dhihi jiray Makarios oo nin baa keenay hadda aanan doonaynin magaciisa inaan halkan ku sheego mashruucaas Makarios baa la dhihi jiray kulay waxa la ii sheegay inuu baadari Talyaaniga ku magac ahaa qandaraas ay ahayd muuqaalka islaamiga ayaa yarta dhalinyarada looga baabi'inay oo surwaal aad ugu dhagan qofka iyo goonna gaaban oo lowga kor ka rays dumarku qaataan ka koreysaba ay gabdhuhu qaataan barnaamijkaas waxa ka midoobay culimo iyo fanaanin nin aqoon-yahan oo abwaan ahaayo Xasan Sheekh Muumin Garod la yiraahdo ayaa aad ula dagaalamay riwaayadu ku soo saaray Shabeelnaagood iyo Xasdaga Duub iyo riwaayadaas ku soo saaray waa markii koowaad aan arkay culimo iyo fanaanin isku hadaf ah oo barnaamijkaas waa la dagaalamay barnaamijkaas waa laga taqalus isla markiiba waxa yimid niman Peace Corps la yiraahdo Mareykan oo surwaalka lugto 40 tahay baalkii elephant la yiraahdo oo bismillaahir rahmaanir rahiim tumu inta la eegeen waa loo xirtay hadana sidii baa la yeelay surwaaladii loo xirtay dhalinyaradii hadana 70kii baa barnaamijkaas nimankii dalka laga saaray 67dii bay yimaadeen 70kii baa dalka laga saaray macallimiin inay yihiin baa lagu sheegay laakiin niman dhaqan qaadaya dhaqanna keenaya bay ahaayeen nimankaas 70kii baa laga saaray mar baan la macaamilayo inaan iska barraaco ilaahay khayr ha siiyo nin daahir maalin xareed la yiraahdo iga reebay oo caawiyo iga reebo yiri war magaal baad noqonaysaa stupidio ma aqaan aqeedadii sida noqon lahayd nimankaas iska raaco xillimay wal 70kii ayaa laga saaray dalka nimankaas magaaladan Dhuusamareeb markii aan imid magaalada dhexdeeda hadda meesha magaalada dhexdeeda ayaa wadadii hore mari jirtay
maqaayad bay ku taalay nin la yara carabay Saudi oo lahaa ina Saudi Xasan Yare maqaayadaas waxaa ku koray ugu yaraan 1,000 cunug way ku kortay nin faxala ayuu ahaa oo deeqsi ah oo qofkii wax baranaya waqti maqaayada ka shaqeeya waqtina wax baro dhihi jiray ninkii ka faa'iiday rag badan baa ka faa'iiday rag baa iyagoo caseeyo wax baran jiray oo markii dambe aqoonta heer sare ka gaaray Soomaalidu markaas waxay haysatay manhaj aad u sareeya waxaa jiray iskuul la dhihi jiray adult oo bixin jiray waxbarasho aad u tayo badan oo macallimiinta dawladda part time ku dhigi jirtay marka afaraadkiisa markaad ka soo baxdo ayaa waxaad la fareysanaysaa sideedaadka dawladda markaad ku soo baasto dugsi sare tagaysa sidaasay ahayd waxbarashadu aad bay u qiimo lahayd ardaygu markuu afaraadka ka soo baxo carabiga iyo ingiriisiga wuu turjumay tos qiimaha uu lahaa aad buu u sareeyay macallimiintuna way tayeesnaayeen koonfurta macallimiin badan ma haysan waxa weeyaan markii la isku daray oo Talyaani ahaayeen waaba la laabay ma ogtahay luqadaas sheekh iskuul iyo camuud baa waxay soo daayeen maxaa ka galay wasaaradda waxbarashadaba camuud iskuul iyo sheekh iskuul baa qabsaday yabigeed Soomaalidu rag badan baa waxay samaysteen qoraal far la qoro Professor Ismaan Kaana diidna la yiraahdo wuxuu sameeyay far u eg farta Etoobiyaanka oo yiri u daabacay oo yiri hal la qaato dadkii way diideen waxa la yiraahdo waa Etoobiyaan tan ma yeelayno laakiin waxa shaqeynayay iyaguna oo hore u shaqeynayay intii aan xorriyadda la qaadan badaaqa xilliga daaqiliyadii Professor Guush Andraviski nin la dhihi jiray oo sheekh iskuul ka tirsanaa iyo nin la oran jiray Muuse Galaal ayaa aad u shaqeeyay wadankay mareen Guush Andraviski luqado badan ayuu yaqaano luqadda af Soomaaligu ay ka mid tahay maqan 94kii buu dhintay baan u maleynayaa waxay keeneen buuggii fartan hadda Soomaaligan la qoro ayay keeneen oo 65kii oo la dhihi jiray buuggii aqoonta iftiinka aqoonta Salaaban Maxamed Aadan ninkan hadda Soomaaliland ka ah madaxa guurtiga golaha guurtiga madaxa ka ayaa library-ga haystay wasaaradda waxbarashada ninkaas aad u xafiday Cabdiraxmaan Sheekh Cabdisalaan in la yiraahdo aabihi halkan qaadi ka ah ayaa soo bartay oo intii gaal ruusho macallinay ay direen uu faaray ilig buu ka jabiyay iskuul ba kuma lihid baa la yiraahdo Soomaaliya walaal wuxuu wax liitay ahaayeen baan u maleynayaa baaqana dawladdu sidee maareeyaba ku filan oo dhamayn kara arintaas baarlamaan baa yirisaas then aniga wuxuu ay baray 68 Soomaaliya far Soomaaliga ha af Soomaaliga waan sitay far Soomaaliga ha markii kacaankii dhashay xataa ninkii xamar deganaa kadare far buu qortay la yiraahdo kadariya isaguna oo yiri halay idana hal hirgaliyo hal qoro maxay ku saabsan waa far caadi ah oo qoraal caadi ah ayuu qaab u habeeyay then markii uu tawradii dhalatay kacaankii daya ka daba hadli kara midan hadda la qoro ayaa la hirgeliyay ha waaya marka abaan gidaar walba waxa lagu dhajiyay bar ama baro shaqaalaha dawladda lagu bilaabay 3 bilood qofka aan ku soo baran waa ruqsa leer xaqna ma leh magaalada macallimiintii la tababaray maahane dad yaqaanaha laga soo baaraa leer abaan ka dhaxkalo ka hor inta aan la dhihin
saddex intaas waqtigaas aan loo qaban dadku maxay isticmaali jireen dadku waxay isticmaali jireen dadna waa dadka luqadda Talyaaniga yaqaan Talyaaniga wax ku qori jireen qaarna Ingiriis bay ku qori jireen odayaal baa jiray warqad baa loo soo dirayaa arday buu u yeerayaa adar warqadan aqri buu leeyahay adigu iska aqri waxba ha fasirin Ingiriis uu ku aqrinaya asagoo waa dhageysanayaa bas biina ma qori karo shaqo ku bartay ma qori karo hadhow markuu dhameeyo wad mahadsantahay leeyahay warqadii uu ka qaadanaya laakiin waxa lagu qorayay farduksi fartan la yiraahdo farguriga oo Carabiga ah waxaan rabaa inaad ii timaad oo Carabi lagu qorayo oo Carabi lagu qorayo tanna waxay u habaysan tahay sidii Carabiga bay u habaysan tahay laakiin qoraalkii baa ka duwan laakiin habahan waxay u habaysan tahay sidii Carabiga waxay ku sii fiican tahay isma dhex gasho shaqalkeeda isma dhex galo fartan isma dhex galo waa Carabiga isma dhex gasho markii horeba Ingiriiska ka sii dambeeyay in la qoro waxaanu la dagaalamay Carabida Carabigu kala dagaalamay inaan luqadda wax lagu qorto oo wax lagu la isticmaalo inaysan Carabi noqon bur saasoo maadaama waxa ardayga Soomaaliyeed uu qorayo ugu horeeya ay Carabiyiin ilaa dugsi Quraan baa la geynayaa soo ma malcamad baa la geynayaa waxa qorayo ugu horeeya waa Carabi ha wuxuu wax ku qoraa marka Carabi bay noqonayaan maogta marka maxaa la dhigi karaa hadafku kala haaya in Carabi la dagaalamay ahayd xaqiiqadeedu waa sidaas isaga qarash gareeyay isaga buugan habeeyay isaga macallimiinta iyo ragga soo habeeyay oo sarfeega sameeyay diray oo qarash gareynay wuu habeeyay adoo rag Soomaaliya oo kalena way ugu tageen oo doonayay in wadanku far yeesho la qoro ka soo gudubay wala dhameeyay arintaas saddexdii bilood bay shaqaaluhu ku barteen magaaladan joogay marka nin mijir Shariif la yiraahdo oo mijir aha oo halkan joogay oo gudoomiye degmo ah ayaa yiri magaalada ha laga soo raadiyo macallimiinta la tababaray mooyaane dad far Soomaaliga yaqaan aniga in la yiraahdo dalays baan la soo helay Ilaahay uu naxariisto Axmed Cabdi Odawaaba la oran jiray كان بيقولوا وانا لو جيو انا waxaan isna shaqo la idin siinayaa waad mahadsantii shaqo hadina la siinayaa shaqalna la siinayo ha gidaarada ma aqrisan waraaqaha ku dhigan ha maxaa ku qoran bar ama baro inaad baranayso iyo inaad barayso waxba kama dhaxeeyaan waan shaqaysanaynaa ban anagu nirmoogti waan shaqaysanaynaa malcag baad rabtaan ha laanta buura ayaa intiqaana leh laanta buura maane wajal kalaanta buura ma waan shaqaynaynaa sidii baan ku shaqaynay waan ka gudubnay markii la dhameeyay waxa loo gudbay ololaha hirgelinta far Soomaaliga ee magaalooyinka miyiga maaha magaalooyinka ha waxaad kamid ahayd dadkii qorista far Soomaaliga macallimiintii baan saas uga mid ahaa way marka adiga sidee ku baratay marka far Soomaaliga qoristiisa waxa Cabdiraxmaan Sheekh Cabdisalaam ninkaas ay baray aniga ninkaas ay baray warbaadu waa bi siduu waca eedu alifki wax saas ii baray maogta sida isu bedelayso ayuu ii baray iyo xeerarkiisu ii baray waa dhag uma baahan maogta tii far Soomaaliga ayaan haddana isla magaaladan ka fulin ayadana aan macallinka ah oo magaalooyinka tii miyiga ardaydii dugsiyada sare ayaa loo kala diray miyiga loo kala diray oo la yiri inta wax loo sameeyay miyiga dhanaan nin walba waxa lagu tiriyay beeldaajiye intii wada shaqeynaysa 7 ardayba beeldaajiye lagu adres garay ninkaas idinka masuul ah leeyahay ayo saasay abaartii daba dheer baan ku dhacday
aad bay ugu maaragtay dhibaatoodeen aad bay u mintideen laakiin ruwaad bay xataa waaberi ku dhex sameeyeenoo maxamed mooge iyo xalimo qalif ay actrish ka ahaayeen magaceedii hadda iga lunsay ololihii barashada far Soomaaliga reer miyiga hirgelinta far Soomaaliga ee reer miyiga sidaasay ahayd sidaas looga soo gudbay awrka dhaanka marka ninku kaansado halka ku qabra la leeyahay buug iyo qalin ba faraha laga saaraya alif ba taada loo dhigaya kii diida ka bixi maayo magaalada halkiisu joog ma awrkiisa mararan karo ma jirto waa inuu qaataa 10kaas marka dambe soo noqotana waa lagu daray ay marka saasay ahayd maba iyo seenaya maanta sida hadda ay u fahamsayeen dadku hadday u fahmi lahaayeen wax badan bay u qaadan lahaayeen laakiin dadku ma fahamsaneen ma ogta miyigu xagga miyigu ma fahamsaneen waxyaabihii aad u soo joogtay mahadhooyinka lahaa weli aan xusuustaada ka go'in qaar kamida ma nala wadaagi kartaa kam hotelku dhex yaalo oo nin hantiilaahay uu lahaa oo xaaji askar la yiraahdo ayaa kambanigu dhex deganaa dadkii Hargeysa arealkeeda ka qaxay oo sida ayaxa u soconaya ayaa socdo halkaas Itoobiya ku socda diyaarada garaacaya baabel hubna ma sitaan wada shacab waxa garaacaya diyaarada ha wadad ilmahoodii toorta ku sita oo qax ah wax allaaliyo waxay biyeenima ba jirta sideetan waa arinta aan ka murugooday nin shiinaysa ayaa eegay dadkii oo habqan ah markaasuu yiri Cabdullaahi matoorkaas star booyadaas biyo ku shub laamida dhig sidii baan yeelay in lay toogto ayaan ku sigtay maxaad u waraabinaysaa dadkan xadbiis war aniga ma aha maareen ninkaas qalabkan niman kale ayaa anigu booydan meesha soo dhigay ayay waan dhigay nimankaas sheenays baa sidaas yeelay kaamka ku dhex yaala ayaan ka dhaamay meeshaan dhigay waana la igu amray ma ogtahay nin qolada u shaqeynayay baa marka in la igu dilo ayaan ku sigtay waxaan la yaabanahay dadkaani cid ay dilayaan ma jirto waxay biyeen ma jirto waa kuwii xoog lahaayoo dawlad la diriirayay way muuqdaan waa kuwaas aadi ma yana maxay kuwan masaakiintan dumarkan iyo caruurtan iyo isisida maxaa loo leeyahay waxyaabahan xusuustayda ka go'in ay ka mid tahay xusuustayda ka go'in waxaan la yaabay subax xamar markii qabtii ka dhacday ayaan waxaan arkay meesha CID oo muraayadaheedii waxa wiil xabad la dhacay ba markaasaan war maxaad ula dhacaysad ka rabtaa maxaad u duminaysaa gurigan iyo muraayadiisa u baabi'inaysaa markaasuu yiri maxamed siyaad baa lahaa maxamed siyaad asagoo sida u dhisan buu xukunka qabtay ma lahayn umadaana lahayde guriga ha baabi'in anigii baan qatar ku galayba sidaad ii dhihi kartaa wuxuu isu haystaa wax wanaagsan inuu samaynayo waxa iiga dambeeyay gurigan hal la dumiyo gurigan waa murtadi hal la dumiyo waa guri gaalo kare uma gelin ma lahayn وقاب كله وحكله ويان أقول أقل مال كل سنة أول يري ومرتد هلا دميو يا يجو حكت لا يقان يا وحكي له حافظ سوق حولها سوق حمر حافظ سوق حولها وكي له حمر ولبدي كوني تدوادي وان أركي أنو تاسنا وسوتشو
qof tawxiidaya oo masaajid ka soo baxay oo soo tukado ilaahay ballan la soo galay oo gaalnimo loo dilayana waan soo joog anoo waxa soo dhan soo joogay ayaan waxaan ka yaabay afar shan ayaa inan yaroo laga yaabo inaanay qaan gaarin kufsanaya saacadda ficilkaasi dhaco intaasoo idaacadood ayaa sheegaya inantii magaceedii iyo inaahyaheedii iyo magaaladay deganeed iyo xaafadda ay ka deganeed bay sheegayaan nimankii falkaa sameeyey mid qura laga sheegi maayo reer hebelkoodana la sheegi maayo meel ay tageenna la sheegi maayo falkan waxay u sameeyeen la sheegi maayo waxaan aaminsanahay idaacadahaas wariyaalka ka sheegaya way ka warqabeen falkan inuu dhacayo oo inantaa la kufsan doono wax ballansan bay ahaayeen maalinta dambana qolo tiraahda dumarka la kufsadan caawina ayaa u imaanayso inantiiba iyo dibadda laga tashkiilinaya waa la qaadaya waxaan shaaka ku maqlay dumarka jirkooda gada ayaa laga dhigaya markay tagaan dibadda ayaa laga dhigaa la igu yiri ma hubo taas waa dhaca ugu foolxun oo na soo maray iyo dulinimada gabar la xumeeyo nin xumeeyay oo caayay ayaa la isugu baabi'i jiray laba nin oo dawladdii hore xasan sheekh ay xamar lagu toogtay oo yiri waan oga niman gaalkacyo wax sidaas oo kale ku sameeyay oo la dilayna waan oga lagu toogtay intii kale mir laga soo qaban marka waxa weeye adduunka dad baa lagu xisaabtamaya gabadh ugubkiiba sidaas laga yeelayaa dhadigii laga yeelayaa sabeen lagu arkay company xoolo dhoofiya ayaa companygii lagu ganaaxay oo lagu liisanka looga kansali gaaray dawlad baa joogtay oo halis ay ku galeen in liisanka ay wax ku dhoofiyaan ba laga kansalo maantana dadka saas la yeelaya hablihii baa sidaas la yeelaya dadkaasi dad bay ka dhasheen in hebel weeye waliba marka la qabto oo la garto nabadoon baa taagan reer hebel oo sidaas naga ma dhaxayn oo ma naga dhaxaysay intaas oo nin isugu tagaan kufsadaan miya naga dhaxaysay maxeer bay noo ahayd xeer nooma ahayn daatir nimanka in la laayo hana dhiibnina rag baan waa idin sii daynay mid kale loo yaro u doodaya ayaa jira waa ciyaar ka xumaatay marka hore kufsi nimanku uma jeedin buu ku doodaya mid baa halka qaylo kicinaya oo qabiil soo dumaya oo bismillaahir rahmaanir rahiim